boqos qaaday ee halka martay markaan barta luuqa ay marnayna ka ay ka siiyay badbada ka siriisay ayna arkayna sababtoo ah debiu ilaa misigteedo kale ay ka xasanayeen marka soo dhaceen kadibna anigu barada socday ka talaba islaam garaas wallahi laba xaqiijinaan laba tiraba hayda laba xaqiijinaan odayaal halkan oo ahaa dooxa isku xidha degmooyinka Axmed Macalin Haarun iyo degmada Maxamed Mooge ee Shiraaqle goor dhaweyd waxa uu qaaday gaari loo yaqaan Bro Boqos waxaana lama xaqiijin gaarigaasi cidda tirada dadka saarnaa balse dadkii goobjoogka ka ahaa halkan isla markaana ku sugnaa ayaa warbaahinta FIFA Media la hadlay waxaana kamid ah hadaladoodii markay kadiisa soo dhacay magaraasa kadibna xabad Bro Boqos cadaana ayay dhufteen magaraasa cid saarana ma arkayna qofka wadu ma arkayna gaariga wax badan qof laakiin wixii saara kama waran karo laakiin in Bro Boqos qaaday ee halka martay markaan barta luuqa ay marnayna ka ay ka siiyay badbada ka siriisay ayna arkayna sababtoo ah debiu ilaa misigteedo kale ay ka xasanayeen marka soo dhaceen kadibna anigu barada socday ka talaba islaam garaasa nafteeda aamin weeyaba ka talaba iyo bilu ku soo dhacaaniga kadib saad u soo dhawaada wif gaariga horyaaba dhafatay kadib markaan iyo sababta u badan waxa sababaya darawaliinta marka dooxa ay roobka jiraan aan hareeraha eegin hana eegana sababta halkan way ka soo xuntaa wax ku yaala garawaayo luuqa aanu gaarigu iska arkin biya marka aanu talaan soo jeeday wax way yartaa biyo wax kasta way dhacaan qadarka ilaahayna lagama baaqsanayo laakiin garawaagaas iyo birish meeshan ma baantay garawaa xuna barta ku yaala arkisid meel ka Cabdiraxmaan marka garawaaga marka laga jaro qofka darawalkii taariikh digida saar kanu biya iska arko biyuna dooxa ku dhuubay saaxib marka talaan soo jeeday wax weeyaan in birish halka la saaro dooxana la yar balaadhiyo aan horta niyow marka hore daad mar xil dambu soo dhaca marka hore roob yar daay awgeed baabuurtuna ninkuna kama filanay daad soo dhacay moogta niyow waxa ugu badan sababay waxa weeyaan niyow birish la'aan iyo dad umada cashuur baa laga ururiyaa birishkan u dhisa dawladda ku dha ilaa dhowr sano ay leeyihiin birish waa la dhisayaa mana dhisaan